السلام عليكم سو دوادا فيلم كان maanta qisadiisa waxa ay ka dhacday dalka Ciraaq 2007 kan waa askari Amerikaan ah oo la dhaho Masios kana waa saaxiibkiis waxaana la dhahaa Ice labadoodana hadartan waxa ay fadhiyaan meeshan waxa ayna wataan shiishaan waxayna waardiyeynayaan meeshan waxaana meeshan daadsan midadka askarta Mareykanka muhiimada ay meeshan u joogaan waa inay dilaan qofkii dilay askartan labadoodana waa ay jifaan waxa ayna haystaan qoriga shiishaanka meesha oo dhanna waxa u saaran liif waxayna fiirinayaan inuu meesha joogo qof nool oo ay dilaan Masios aad ay u xanaaqsan maxay meeshan waxa ay joogeen waqti badan saasi tahayna qof dhaqaaqaya ma lahan waxa uu ku dhahayaa saaxiibkiis Ice meeqa saac ayaa inta joognay asagana waxa uu ku dhahayaa 20 saacadood ayaan joognay wuxuu kale u sheegayaa dadka inta lagu dilay inay yihiin 8 qofood dhamaantoodna waxa lagu dilay 30 sakiin oo kaliya weyn iska cadahay qofka sida sameeyeen waa shiishaan Ciraaqi ah oo waliba leesh badan laakiin Masios waa u dhibsanaya hadalkaas waxa uu ku dhahayaa sidaas hadhiin saaxiibkaygiyo aniga hadartan waa baxaya waxaana soo qaadanayaa teleefankaas oo waliba ag yaala ninkaas dhintay waxaana la hadlayaa gurmadka meeshan waa iskaga tageynaa Masios waa uu istaagaya waxa uu gashanaya okiyaalihiisa si uu u baxo oo uu soo qaado teleefankaas uu u dalbado caawimaad Ice-na waxa uu ku dhahayaa hadii aan booskaaga ku jiri lahay waxas ma sameyn lahayn Masios waa uu baxaya Ice-na kor ayuu ka waardiyeynaya Masios-na waxa uu arkayaa dadkii dhintay waxa uu arkayaa dhamaantood in madaxa laga toogtay waxa uu ku dhahayaa Ice qofka sidan sameeyay waa qof shiishaan Ciraaqi ah oo waliba shiish badan shaki ma lahan asagana waxa uu ku dhahayaa dhaqso soo laabahe hal mar Ice doobirihiisa waxa ka buuxsamaya boor waxna waa uu ka arki weynaa waxa uu bilaabayaa inuu nadiifiyo Masios-na waxa uu istaagsan yahay asagoo oo cabsanayo oo uu jeedo dadkii lagu dilay meesha hal mar Masios waxa lagu dhufanayaa lugta Ice ayaa fiirinaya waxa uu arkayaa saaxiibkiis oo dhulka ku dhacayo mana yaqaanana asaga meesha ay ka imaatay xabada Ice waa uu istaagaya waxa uu u cararayaa xagga saaxiibkiisa waxa uu bilaabo inuu marba meel u ordo si aysan ugu dhicin xabada shiishaanka geesiga ah ee liishka badan asagana si fiican ayuu ugu jeeday laakiin ma uusan dilin waa uu waardiisanayay markii uu ag imaado saaxiibkiisa hal xabad oo kaliya ku dhufanay ee waxa uu ku dhuftay 3 xabadood mid lugta ayuu ku dhuftay midna teleefanka midna waxa uu ku dhuftay caaga oo biyaha ka cabaayay hal mar ayuu dhulka ku dhacayaa sida saaxiibkiis oo kale kadibna waa uu gurguranaya waxa uu tagayaa darbi geeskiisa wuxuuna u cabaadayaa sida naagaha oo kale waxa uu fiirinayaa lugtiisa aad moodid lug uu libax qaniinay kadibna waxa uu qabsanayaa qorigiisa waxa uu ku qaylinayaa Masios bis saaxiibkiis waxa uu u yeelaa sida wanka camal waa uu cabaadayay Ice-na waxa uu ku dhahayaa war iska xir dhiiga si aadan u dhiig bixin Masios-na waxa uu jifay dhulka asaga oo waliba aan dhaqaaqaynin waxa uu la hadlayaa saaxiibkiisa waxa uu ku dhahayaa waxa raba in ay caawisid asagana waxa uu ku dhahayaa aniga ma awoodi midaas kadibna asagana lugta ayuu iska xirayaa waxa uu iska joojinayaa dhiigga ka socday waxa uu ku qorayaa saacada uu dhaawacmay wuxuuna isticmaali maaga teleefanka si uu u dalbado gurmad iyo caawimaad laakiin taarka waa uu halaabay asagana waxa uu isku dayayaa dhowr mar waa uu ku guul dareysanayaa Masios waxa uu ku dhahayaa Ice waxaan haysanaa fursad aan ku dili karno ninka Ciraaqiga ah saaxiibkiis Ice-na waxa uu ku dhahayaa sidaas sameeyna hadii aad dhaqaaqdid ninkaas calaadul waa uu ku dilayaa Ice-na waxa uu bilaabaya inuu darbiga ka dhaxbaxsho doobiraha laakiin asagoo sameey maaga duleel waxa ku soo dhacay dhagax gacanta ayuu ka xanuujinayaa ugu dambeyntiina waxa uu ku guuleysanayaa inuu darbiga ka dhaxbaxsho doobiraha waxa uu ku dhahayaa Masios waan ogaaday meesha uu joogo ninka laakiin saaxiibkiisa ma maqlaayo waaba nin suuxay kadibna asagana waxa uu iska saarayaa xabada ku jirta lugtiisa waxa uu u cabaadayaa sida haweenka oo kale waxa uu iska saarayaa faashad kadibna waa uu mirdaboolmaya waxa uu soo kacayaa asagoo qof kala hadlayso samaacada dhagta ayuu gishanayaa waxa uu ku dhahayaa qofka dhagaha kala hadlayay mid ayaa liifna saartay waxaana u baahanahay caawimaad qofkii la hadlayayna waxa uu ku dhahayaa aniga waxaan u baahanahay ina isku sheegtid qofka aad tahay asagana waxa uu u sheegayaa magaciisa iyo meesha uu joogo kadibna gacanta ayuu ku qabanayaa xabada uu lugtiisa ka soo saaray waxa uu dhahayaa xabada ninkii soo riday waa shiishaan walle qofkii la hadlayayna waxa uu ku dhahayaa waxa raba ina ii xadidid meesha aad joogtid asagoo raba inuu xabad kor u rido hal mar ayuu iska deenayaa waxa uu ku dhahayaa kan ila hadlayo adiga ma tiid Amerikaan sax waxa uu noqday qofkii la hadlayay ninkii shiishaanka ahay ee Ciraaqiga ahay waa kii dhaawacay laayeen dhammaan ciidamada Mareykanka waxanaaqaya waxa uu bilaabayaa inuu waco qolada caawimaada laakiin teleefanka ayaa u shaqay weynaa kadibna waxa uu la hadlayaa geesiga Ciraaqiga ah waxa uu ku dhahayaa maxaa iga rabtaa asagana waxa uu ku dhahayaa isweydi asagana waxa uu ku dhahayaa aniga waxaan ahay askari yariis ah oo kamid ahna ciidamada Mareykanka shiishaankii muslimka ahayna waxa uu ku dhahayaa aniga wax kale ma ka rabo oo aan ka ahayn ina ii sheegtid qofka aad tahay intuu la hadlayo waxa uu helayaa fursad uu ku fiiriyo doobiraha uu ku ogaanayo meesha uu joogo Ice waxa uu ku dhahayaa aniga ma ku sheegayo qofka aan ahay ilaa adiga marka koowaad aad ii sheegtid qofka tahay geesigana waxa uu ku dhahayaa aniga waxaan ahay nin Ciraaqi ah Ice-na waxa uu bilaabayaa inuu qaridada ku sawiro dhulka si uu u xadido meesha uu joogo ninka iyo inta u dhaxaysa masaafo ahaan ninka Ciraaqiga ayuu la hadlayaa waxa uu ku dhahayaa dadkii aad dishay oo dhan dambi ma lahayn maxay idinka wadankiina ay idin dhisayeen Ciraaqigana waxa uu ku dhahayaa ma waxay
dhisayaan waddankeena kadib markii ay burburiyeen. Ice-na waxa uu ku dhahayaa dagaalka waa uu dhamaaday, asagana waxa uu ugu jawaabayaa haddii uu dhamaado dagaalka maxaa ka qabanaysaa waddankeena Ciraaq. Marka sidaas darteed dagaalka ma dhamaanin. Ice-na markaas waxa uu arkayaa askari dhulka yaalo oo ag yaalana taleefanka, waxa uuna aadayaa derbiga dhamaadkiisa, waxa uuna la hadlayaa ninka Ciraaqiga ah si uu u mashquuliyo intuu soo qabsanayo taleefanka uuna ka soo laabanayo. geesigii Ciraaqiga ahayna ugu dambeyntii waxa uu ogaaday meesha uu jooga ninka Mareykanka iyo derbiga uu ku dhuumanayay. Ice waxa uu soo baxsanaya ubadda uu biyaha ku cabayay, waxa uuna ka war helayaa inay maran tahay oo wax biyo aysan ku jirin. Markii uu fiiriyayna waxa uu arkayaa inay xabad ku dhex taalo. Ninka Ciraaqiga ayaa la hadlayo, waxa uuna ku dhahayaa waan ogahay ubadda waa ay duleeshaa, taleefankan xabad ayaa ku dhacday, adigana lugta dhaawac ayaa ka tahay, aniga ayaana si kas imaag ah ugu dhuftay xabadda si aad ugu dhimatid dhiigbax oo u weysidna biyo aad cabtid. Asagana waa uu xanaaqaya, waxa uuna qabsanayaa qoriga, waxa uuna ku soo laabanayaa meeshii uu markii hore joogay. Doobiraha ayuuna fiirinayaa, waxa uuna rabaa inuu ogaado meesha uu jooga ninka Ciraaqiga ah, waxa uuna isdhahayaa waa kan kor jiifa qashinka. Intaas kadibna Ice waxa uu jiifanayaa dhulka, waxa uuna wejiga ka daboolanayaa qoraxda. Ciraaqigana waxa uu ku dhahayaa markii aan ku dilo waa ku jarjari doonaa, indhaha ayaana kaa saari doonaa, carabkana waa kaa gooyin doonaa. Asagana waxa uu ku dhahayaa ma iska dishid oo ii raaxaysid. Kadibna Ice qorigiisa waxa uu surayaa shaatigiisa, waxa uuna kor ka saarayaa koofidiisa. Derbiga ayuuna ka soo taagayaa si shiishaanka uu ugu soo rido xabad, sidaasna uu ku ogaado meesha uu joogo shiishaanka. Laakiin koofida ayaa ka dhacayso, Ciraaqigana waa uu arkayaa, waa uuna ku qoslayaa. Ice-na waa uu quustay, niyadda ayaana ka jabtay. Waxa uuna soo baxsaday biskooladiisa si uu isku dilo, kadibna waa uu tuurayaa, waa uuna ooynayaa sida naagaha oo kale. Isla waqtigaasna meesha waxaa ka kacaya duufaano, meesha dhanna waxa ay noqonaysaa boor. Ice-na waxa uu aadayaa dhinaca kale ee derbiga, waxa uuna aadayaa taleefanka si uu u soo qaato, laakiin shiishaanka Ciraaqiga ah kor ayuu ka arkayay, mana uusan dilin. Asagana waxa uu soo qaadanayaa taleefanka, waa uuna soo laabanayaa. ninkii Ciraaqigana xabad ayuu ku soo ridayaa, waxa uuna ku dhufanayaa derbiga. Ice-na boorsadii uu soo qaatay waxa uu ka helayaa biyo, wuxuuna u cabayaa sida ay ooman, sidoo kalena waxa uu ka helay cunto uu cuno. Taleefanka ayuuna ku hadli maagaa laakiin ma shaqeynayo, waxa uuna fiirin maagaa doobiraha shaashadiisana waa ay jabtay. Asagoo la hadlaya shiishaanka Ciraaqiga ah waxa uu maqlayaa cod kale, waana askarigii Mathias oo nool. Mathiasna marbi inuu meesha ka dhaqaaqo, haddii kalena waa la dilayaa. Waxa uuna soo baxsanayaa miraayad yar, waxa uuna ku soo ifinayaa saaxiibkiisa, sidaas ayuuna ku ogaanayaa asagan inuu nool yahay. Ice-na waxa uu ku dhahayaa waan ogahay meesha aad joogtid shiishaankow. Ciraaqigana waxa uu markaas kor jiifay qashinka. Mathiasna waxa uu rabaa inuu soo qaato qorigiisa, intuu Ice la hadlayo Ciraaqiga uuna mashquulinayo, laakiin shiishaanka Ciraaqiga wuxuu u jeeday wixii meesha ka dhacayo oo dhan. Mathias waxa uu soo qaadanayaa qoriga. Ice-na waxa uu ku dhahayaa ha dhaqdhaqaaqin, haddii kale waa lagu dilayaa. Ice-na waxa uu mashquulinayaa shiishaanka Ciraaqiga ah, xabada ayuuna kor u ridayaa, halka Mathias uu qabsanayo qorigiisa, waxa uuna xabad ku ridayaa shiishaanka. Shiishaanka Ciraaqigana waa uu u soo jawaabayaa, waxa uuna ugu dhufanayaa garabka xabad. Ice-na waa uu murugoonayaa, Mathiasna waxa uu qabsanayaa qoriga, waa uuna soo gurguranayaa si uu ugu imaado Ice, laakiin Ciraaqiga ayaana xabad kale ku dhufanayo. Ice waxa uu aadayaa taleefanka si uu u sameeyo, waxa uuna ka soo qaadanayaa taleefankiisa fiilo, waxa uuna ku rakabaya kan kale. Ugu dambeyntiina waxa uu sidaas ku maqlayaa cod ka imaaday markaska caawimaadda, laakiin nasiib darro khadka waxaa ka soo dhex galaya Ciraaqiga. Waxa uuna la hadlayaa qolada caawimaadda, asagoo weliban iska dhigaya inuu yahay Ice, wuuna qiyaamayaa, waxa uuna ku dhahayaa xaalkayga waa uu fiican yahay, keliyana waxaan u baahanahay inaa ii imaataan oo keliya. Qolada gurmadkana waxa ay ku dhahayaan 8 daqiiqo oo keliya kadib waa kula joognaa. Ice-na waxa uu waayay rajadiisa, wuuna suuxay ilaa markii dambe uu ka soo kacay, ayadoo duka uu cunayo hilibkiisa. Wuu soo kacayaa, waxa uuna qabsanayaa dhagax, waxa uuna ku xiray xarig, waxa uuna ku tuuray qoriga saaxiibkiisa, maxaa yeelay asaga xabadihiisa waa ay ka dhammaadeen. ugu dambeyntiina qoriga waa uu soo qabsaday. Diyaaradihii Mareykankana waa ay imaadeen si ay u qaadaan meedadkooda, asagana waxa uu duminayaa derbiga si bus badan ay ugu kacdo meesha oona loo arkin. Shiishaanka Ciraaqiga ayuuna xabad ku ridayaa, waxa uuna ku fikirayaa inuu sidaas ku dhintay ninka Ciraaqiga ahay. Hal mar ayuu istaagayaa, waxa uuna isku qabsanayaa indhaha si uu u ogaado inuu dhintay iyo inuu nool yahay. Markii uu arkay inuu nool yahay oo xabad aan lagu dhufanin, wuu farxayaa, waxaana u imaanayaa nimanka gurmadka, waa ayna qaadayaan diyaaradda. Markii ay saaraan ee kacdana diyaaradda, shiishaanka Ciraaqiga ahay waxa uu ka dilayaa hal qof, kadibna mid kale ayuu ka dilayaa ilaa markii dambe uu ka soo riday diyaaradda. Sidaas ayuuna ku dilay ayaka oo dhan. Sidaas ayuuna ku dhamaanayaa filimkeena maanta, waana qiso dhab ah oo ka dhacday waddanka Ciraaq. waxaa rajeynaa inaad filimkan ka hesheen. like saarana muuqaalkan waa codsi amarna ma ahan, nagu soo bir maalin kasta iyo hal muuqaalna daawo. muuqaalkan waxaa qoray Kabtan Maajid, waxaana codeeyay anigoo Cabdulxaliim Cali ah, waxaana habeeyey oo edit gareeyay Kabtan Maajid. filimkana magaciisa waxaa la lahaa Dabool. waana mahadsantihiin, maca salaama.